hay-adda NCA oo kamid ah hay-adaha ka howlgala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya ka howlgalaysay gobolka Gedo isla markaana mashaariic wax ku ool ka fulisay gobolka ayaa dhawaanahanba ka waday xarunta ganacsiga ee gobolka Gedo ee magaalada Beledxaawo oo bulshada looga wacyigelinayo inay ilaaliyaan nadaafadda deegaanka. Ololahan waxaa qayb ka ah ururka haweenka degmada, ururka dhalinyarada iyo qaybo badan oo kamid ah goobaha waxbarashada magaalada. Bulshada magaalada iyo hay-adda NCA oo iskaashanaya ayaa waxa uu suuragalay inay nadiifiyaan wixii qashin ee dhex yaalay gudaha magaalada, isbitaalka guud iyo goobo badan oo kamid ah goobaha waxbarashada iyo garoomada ciyaaraha. Annaga oo ka socon ururka dhalinyarada degmada Beledxaawo, ururka hooyooyinka hay'adda NCA oo naga caawinayso waxaan saaka isugu soo baxnay insha Allah taala inaan ka nadaafino ama aan ololo nadaafadeed baan u soo baxnay oo ka sameyn rabno degmada Beledxaawo. maxaa yeelay cidana uma maqno ceello uma qodno degmada annaga u dhalanay, annaga ururadii bulshada rayidka ah. waxaan rabnaa in insha Allah taala aan bilicdeedii aan soo celino. waxaan heegan u nahay ama aan diyaar u nahay ururka hooyooyinka baan isu kaashan rabnaa in aan qashinkaas ka nadiifino degmada Beledxaawo gudaheeda yaallo insha Allah taala. bacdeen aan u gudubno midka banaanka yaallo banaanka la dhigayo. maxaa yeelay qashinku waad ogtihiin dhibaatada uu ku leeyahay bulshadu. bulsho qashin dhex yaallo caafimaad ma laha. qashinka inta uu ku jiro caafimaadkana ku jira. san ururka haweenka iyo dhalinyarada oo maanta ka shaqaynayso nadaafadda degmada Beledxaawo waxaan maanta aad iyo aad ugu taaganahay dalkanaga iyo dadkanaga wax u qabanno nadaafadda inaan ka shaqayno. cudurka dilaaha socdo inaan dadka u sheegno oo ka wacyigelino si aan maartaay dadku ay uga wacyigaloobaan ay macnaha gacmaha u dhaqdaan afka ay u xirtaan. waxaan rabnaa haddaan nahay bulshada Beledxaawo aan u hadlayno in nadaafadda ay ka shaqeeyaan, inay gacmaha isqabsadaan. waxaan ka codsanaynaa dadka reer Beledxaawo inayna qashinka ayna ku daadinin hortooda si ay uga badbaadaan cudurrada jira oo dilaaga ah. kooxda wacyigelinta nadaafadda ahna ururka haweenka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada saaka waxaan wadnaa nadaafad guud oo maxaan ku dhahaa dhammaan qaybaha Beledxaawo ka socota. haddaan nadaafadu jirin nolol ma jirtaan u leenahay. haddaan nadaafadu jirin nolol ma jirto. waxa weeye dhammaan bulshada Beledxaawo sida dhalinyarada iyo haweenku isu xilqaameen in ay ayagoo dhan isu xilqaamaan oo ay ka qayb galaan nadaafadda. nadaafaddu waa shayga cajiibka oo looga nabad galo cudurrada dilaaga ah. waa inaan iskarabsanno, waa inaynu wada shaqayno, waa inaan cudurrada nagu wajahan aanu ka feejignaano maadaama ay jiraan xilliyadii roobka iyo cudurrada isxambaarsan. waa inaynu ka feejignaano. nadaafadda oo la nadaafiyo waa iimaanka barkii. marka bulshada reer Beledxaawo waxaan kula talin lahaa inay degmadooda bilicda soo celiyaan, qashinka iska aruuriyaan. magacayga waa Maqsuud Cabdi Warsame, waxaan ahay ardayd kamid ah iskuulka hoose dhexe sare waa bari. waxaan halkaan u istaagnay maanta inaan dadka ka wacyigelino nadaafadda. waxaan rabnaa inaan iskuulo badan iyo isbitaalada aan tagno oon ka wacyigelino dadka inay nadaafadda ay tahay shay qaali ah oo naga difaacaysa cudurro badan oo nagu imaan karo oo kuna khatar nafsadeennada. waxaan ahay ardayd ka socotay iskuulkaas, waxaan u soo dhiirigeliyay inaan maanteeto aan dadka soo wacyigeliyo si ay nadaafadda ugu dhiirigeliyaan. marka koowaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahad iska leh. marka labaad waxaan u mahad celinaynaa hay'adda NCA oo run ahaantii nadaafad ka wado degmada Beledxaawo. run ahaantii hadda meelan taagana waa garoonka Socoomane oo run ahaantii qashinka yaalo wad aragtaan oo dadkii guryihii iyo qashinada ay ka soo qaadeen bay garoonka soo tuureen. duruufaha ka muuqdo aragtaan laakiinse ayadaa waxay dusha saaratay inay hagaajiso nadaafadda mataqaanaa ay ku dadaasho. marka run ahaantii aad bay u mahadsan tahay. waxaana samayn doonaa annagoo dhalinyaro ah iskaa wax u qabo oon mataqaanaa aan samayn doono oo aan xaaqi doono qashinkan game friend match oo nadaafadda ahna aan u ciyaari doono insha Allah. hay'adda NCA ayaa waxay ka wadaa degmada Beledxaawo olole nadaafadda ayay ka wadaa. marka waxa hadda meesha taaganna waa u jeedaana u maleynaya magaaladii yaa qashinka laga soo qaadaya waxa lagu soo daadinayaa isla magaaladii dhexdeeda. marka waxa loo baahan yahay dadka macnaha dadweynaha waxaan u sheegaynaa in ay macnaha qashinka ee xaafadaha ama wadooyinka ay ku daadinayaan in ay naga ilaaliyaan, ay nadaafadda iska hagaajiyaan oo meelaha lagu daadiyo ama meelaha nidaamka oo sharciga ah oo meelaha la geeyo qashinka in la geeyo
oo nala soo aadin garoomada aniga oo ka socdo iskuulka Daawa Primary School inay tahay nadaafadda wax qaali ah inay tahay nadaafadda iimaanka barkeeda had iyo jeer waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda guryaheena kuwa beeyada magaalooyinka isbitaalada intay qashinka noo jira ayuu cudurkuna noo jira waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda waa inaan ka qaadnaa qashimooyinka sakiimaha curbadaha waa inaan meelaha muhiimka oo lagu talagalay aan dhigno oo meesha la marayo aan ka qaadnaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda NCA iyo arintan campaign-ka oo ku saabsan hygiene-ka oo maanta nagu soo booqdeen isbitaal Qaliil aad baan ugu mahadcelinayaa hawshan ay noo fuliyeen oo ah inay nagala qayb qaateen hygiene-ka isbitaalka dhammaan wixii warqad iyo bac iyo wajiiro ku dhuunsanaa ay soo galiyeen arday ay ka keeneen iskuulada waxaan kaloo aan hay'adda NCA ka codsanaynaa xaqiiqdii in arintan ay noo joogteeyaan xaqiiqdii hygiene-ka caqabadna haysata jirta anaga isbitaalka waxa jiro meelihii aan qashin ku gubeynay incineratorradii ayaa waxay nooga dhawaadeen guryihiina inay gubtaan ka baqnay meel bannaan oo isbitaalka dhexdiisa aan ku gubnaa qashinka hay'adda waxaan si sharaf leh oo xurmad leh uga codsanaynaa inay noo sameeyaan meel aan ku gubno qashinka oo ka baxsan magaalada qashinka la geeyo isla markaana lagu gubo taas ayaa waxay ku safgaroobi karaa isbitaalkii waxa ku safgaroobi kara degaankii magacayga saddexan waa Fatxa Cabdi Xuseen aniga saa ka socdo iskuulka Daawa Primary School waxaana wacyigelinteena saa ku socotaa nadaafadda waa shay qaali ah waxaan ku dadaalaynaa inaan istibaalada anada iskuulada deegaanka dhammaan inaan ku wacyigelino nadaafadda waa shay qaali oo diinta anada ay nafartay nadaafadda waa inaan ku dadaalo